waxaase aan imika dadka dadweynaha laascaanood la socodsiinayaa war dadka dhulka sheeganaya markaan leeyahay sheeganaya annagu ku qabsan mayne danbaa sidaa tiri inay sheegtaan danbaa tiri war qofkii doonaya dhulkiisa inuu xalaalaysto waa in uu loo qorsheeyaa marka ugu horreysa waa in loo qorsheeyaa oo wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo wada socdaa ay dhulka qorsheeyaan markay qorsheeyaanna waa in dantii guud laga gooyaa saasaa dhulka ugu xalaaloobayaa dhulka danta guuda la goynayo wasaaradda howlaha guud male dowladaha hoose male shacab loo qaybin maayo waxaa laga dhisayaa oo loo haynayaa uun wax dan guuda oo dadka ka dhexeeya taa macnaheedu ma aha in dhulka wasaaradda howlaha guud cidi doontana siinaysa haynaysana dowladda hoose waxaa oolaya naqshadii dhulkaa la qorsheeyey ee qofka hebel la yidhaahdaa lahaa oo ay ku caddahay dhulkii laga gooyey waxaa la dhigayaa dowladda hoose intii laga gooyey oo casaan la mariyey waxaa la dhigayaa wasaaradda howlaha guud intii laga gooyey oo casaan la mariyey waxaa haysanaya qofka meesha leh intaasayba ku egtay waxay ku egtay qofka dhulka leh inuu kooba haysto wixii laga gooyey wasaaradda howlaha guudna kooba hayso dowladda hoosena kooba hayso xarunta gobolkana koobi yaallo marka iska daa cid kale ee qofka beerta leh meesha lahaa dhulka lahaa baa ogaanaya dhulkiisa sida loo galay waxaa jooga injineero dhulka danta guud baa la goynayaa qofka la goynayo dhulkiisa in loo qorsheeyo oo uu cagaf geliyo oo loo qorsheeyo waa dhulkii master balaanku maraye isagay danu tahay waa ku muran beelaysaa way ku hadal beelaysaa isaga waa u xalaaloobaysaa laascaanood dhulkii intii uu ka qaali garoobay waad ogtihiin oo waxqabad weyn baa ka waxismay sidaa daraaddeed dadka qurba joogga ee dhulka hantida gelinaya waxaan idinkula talin lahaa meesha aad hantidiina gelinaysaan inaad ogaataan in wadda mari doonto inuu dhul caadiya yahay in master balaanki dhulkeedii uu ku jiro inaad ogaataan baa ila habboon 10 casho dowladda hoosaan u daba fadhinaa waxaan kharash u baahay qaatana waa kala qayb qaadanaynaa insha allah bismillaahi kariim 10 casho waa in wacyigelinta la sameeyaa oo ay socotaa injineeradiina waa joogaan sidaa baanu dhammaanteen idinla socodsiinaynaa ilaahay agtiisana waxaanu ka baryaynaa in dhammaanteenba howlaha uu inoo sakhiro